soo dhawaada asxaabay maanta waxaan idin soo koobi doonaa film horror ah oo soo baxay 2019 filimkan magaciisu waa Countdown waana kan filimku ee daawo oo taxadir filimku waxa uu ku bilaabanayaa dhalinyaro fadhida miiska cuntada gabdhaha meesha fadhiya waxay tirinayaan koloro haddaba mid kamid ah gabdhaha meesha fadhiya ayaa dhalinyaradii tustay application la soconaya cunto qaadashada maalinlaha ah mid kamid ah ayaa isku dayday inay soo dejisto application-ka waxa ayna tagtay App Store-ka si ay u soo dejisato intii ay ku guda jirtay App Store-ka ayaa waxay aragtay application kale oo lagu magacaabo Countdown waxayna la wadaagtay asxaabteeda laakiin asxaabteedu waxay weydiiyeen waxa application-ku ku saabsan yahay waxayna u sheegtay in application-kan uu ogaan karo waqtiga uu qofku dhimanayo haddaba kooxdan dhalinyarada ay waxay go'aansadeen inay cabaan cabitaankooda miiska saaran kadibna ay tijaabiyaan application-ka si ay u ogaadaan qofka ugu dambeeya ee dhiman doona iyo qofka ugu horeeya ee dhiman doona dhammaan dhalinyaradii meesha fadhiday waxay wada tijaabiyeen goorta ay dhiman doonaan waxayna dhammaantood ogaadeen inay haystaan 30 sano ilaa 60 sano oo cimri ah balse gabadh ku jirtay kooxda oo lagu magacaabo Courtney waxa wajigeeda laga arkay inay aad u xanaaqsan tahay maadaama application-ku uu sheegay in nolosheeda ay ka harsan tahay 3 saac oo kaliya dhalinyaradii kale ayaa aad ugu qosashay iyada iyagoo waliba ka cabsiinaya marka xigta waxaynu aragnaa Courtney saaxiibkeed Evan oo sarxaansan oo u socda dhinaca gaarigiisa waxa uu arkay Courtney oo gaariga ku dhex jirta waxaana uu weydiiyay inuu sii dhaweeyo oo lafti siiyo laakiin way diiday iyadu waxaanay u sheegtay inay lugta ka jeceshahay gaariga Courtney waxay ka baxday gaariga halka Evan uu ka tagay goobta haddaba Courtney iyadoo wadada lugaynaysa ayaa waxa uu soo dhacay message uga yimid dhinaca app-kii qofka uu sheegay goorta uu dhimanayo waxaana uu ku yiri waxa jabisay shuruucihii app-ka laakiin Courtney waxa iska sii waday socodkeeda iyadoo naxsan niyadeeduna ay u sheegayso in qof daba socdo isla xilligaasna waxay furtay moobilkeeda waxayna aragtay in waqtigii loo qabtay uu ka harsan yahay wax ku dhow 2 daqiiqo isla markiibana waxay soo gaadhay gurigeeda iyadoo aad u naxsan waxayna si degdeg ah u damisay moobilkeeda isla xilligaasna waxay aaday musqusha qubeyska waxaana ay dareentay in wax shanqarayaan isla markiibana waxay soo aaday dhinaca daaha si ay u hubiso in wax ku jiraan balse waxay ogaatay inaanay waxba ku dhex jirin daaha balse mar kale iyadoo biyo cabasa ayaa waxay dareentay in daahi uu mar kale dhaqaaqay isla markay sidaa u soo jeesatayna waxba xagga sare kaga yimi oo dhulka ku tuuray waxayna ka jabtay qoorta sidaas ayayna ku dhimatay waxayna ku dhimatay markii tiradu ku istaagtay 0 halka saaxiibkeed Evan uu galay shil baabuur laakiinse uu ka badbaaday oo dhaawacyo yar ayaa soo gaadhay waxaana la geeyay isbitaalka maalinimadii xigtay gabadh lagu magacaabo Queen ayaa soo aaday qolka Evan waxayna aragtay in bukaankeedu uusan cunin quraacdii loo keenay waxayna ka raadisay dhammaan qolalka kale ee isbitaalka ugu dambeyntiina waxay aragtay isagoo fadhiya balakoonka isbitaalka waxayna aaday dhinaciisa waanay la fadhiisatay waanay la hadashay iyadoo ku qancinaysa inuusan welwelin waxayna u sheegtay inuu goordhow ka bogsan doono dhaawaca laakiinse Evan waxa uu tusay application-kii Countdown ee qofka u sheegay goorta uu dhimanayo isagoo waliba u sheegay in noloshiisa dhanba ay ka harsan tahay 19 saacadood oo kaliya waxaana uga sheekayay dhammaan macluumaadka ku saabsan app-ka isagoo u sheegay inuu yahay app si run ah dadka ugu sheegay goorta ay dhimanayaan waxaana u sheegay in saaxiibadii xitaa ay ku dhimatay waqtiga uu isagu sheegay waxa uuna yiri anigana dhimashadeeda waxa uu sheegay markii aan shilka galay Queen waxay u sheegtay inuusan ka warwarin waxa app-ku u sheegay waxayna ku qancisay inuu qolkiisa ku noqdo oo quraacdiisa cuno Queen markii ay ka soo tagtay Evan waxa ay la kulantay gabadh neersad ah oo lagu magacaabo Amy waxayna Amy Queen u sheegtay inay soo raacdo iyada markii ay soo raacday kadib waxay aragtay dhammaan shaqaalihii isbitaalka oo surprise uga dhigay cake maadaama ay ku baastay imtixaankeedii neersnimo haddaba iyagoo fadhiya oo keega cunaya Queen ayaa shaqaalihii u sheegtay arrinta ku saabsan app-kii dadka u sheegay goorta ay dhimanayaan laakiin mid kamid ah shaqaalaha ayaa sheegtay inay hore u maqashay arrimaha ku saabsan app-ka dhammaantoodna way wada tijaabiyeen app-kii waxaana u soo wada baxday inay sii noolaan doonaan ilaa 50 sano iyo wixii ka badan iyagoo ka wada sheekaysanaya arrimaha app-ka ayaa waxa si lama filaan ugu soo galay nin wada gabadh qaylinaysa isla markiibana doctor-ka ayaa eegay xaaladeeda caafimaad waxa ayna siiyeen xoogaa daawo ah ugu dambeyntiina way soo miirsatay gabadhii haddaba Queen waxa uu soo dhamaaday waqtigii shaqada iyadoo ka sii baxsa goobtii shaqada ayaa waxa si lama filaan ugu soo dhacay xayeysiintii app-ka isla markiibana waa ay soo dejistay waxaana aqbashay dhammaan shuruucihii app-ka waxa uu application-ku u sheegay in nolosheeda ay ka harsan tahay 2 maalmood oo kaliya isla xilligaasna waxay si lama filaan wiishka ugu kulmeen Dr. Sullivan intii ay ku guda jireen gudaha wiishka waxa uu isku dayay inuu la hasaawo iyada laakiin Queen way iska dhagatirtay dhammaan hadaladiisa isla habeenkaasna Queen waxay dhameysay dhammaan dukumeentiyadeedii neersnimo
laakiinse waxaa qabsaday xoogaa problem ah waxayna wacday gabadh lagu magacaabo Kato iyadoo weydiinaysa kaadhkeedii dhalashada laakiin Kato waxay sheegtay inaysan arag kaadhkeedii dhalashada isla xilligaasna Queen waxay soo aaday guriga waalidiinteed si ay uga raadiso kaadhkeedii dhalashada markii ay guriga soo gashayna waxay la kulantay aabaheed aad ayuu ugu farxay markuu arkay gabadhiisa waxa uu ka codsaday in maalinta Sabtida ay soo siyaartaan qabriga hooyadeed maalinimadii xigtay Evan waxa uu isku diyaarinayay qalliinkii lagu sameyn lahaa isaga waxa uu eegay abkii waxa uu arkay in noloshiisa ay ka harsan tahay 3 daqiiqo oo kaliya aad ayuuna u argagaxay waxa uu si degdeg uga baxay qolkii isla waqtigaasna waxa uu soo dhacay notification u sheegaya inuu jabiyay heshiiskii Evan aad ayuu u argagaxay mar kale waxa uu muraayada ka arkay qof gadaashiisa taagan laakiin markuu dib u jeestay waxa uu ogaaday inaanay waxba joogin meesha waxa uu bilaabay inuu ka baxsado goobta balse haddana abkii ayaa waxa uu soo diray ogeysiis kale Evan waxa uu koray wiishka oo mugdi ah waxa uu ifsaday moobilkiisa isagoo aad u cabsanaya laakiin haddana waxba si fiican uguma arkayn iftiinka moobilka isla xilligaasna waxa uu arkay qof soo socda xaggiisa waxa uu u maleeyay saaxiibtiisii dhimatay ee Courtney laakiin haddana waxa uu arkay in waxaas yahay wax kale oo aanu garanayn waxaana isla markiiba moobilkiisu kaga dhacay jaranjarada hoosteeda waxaana tiradii ku istaagtay 0 isla markiibana waxa soo dhacay Evan halka ayuuna ku dhintay cabaar kadib waxa shaqada timi Queen Amy ayaa uga warantay arinta Evan Queen waxay soo xasuusatay arintii application-ka waxayna soo aaday qolkii uu yaalay meedkii Evan waxayna kalkaalisadii ka codsatay inay dibadda uga yara baxdo waxayna soo qaaday taleefankiisii laakiin waxay ogaatay in moobilku ku furmayo farta Evan waxaana ay ka qaaday maradii iyadoo isku daysay inay fartiisa ku furto moobilka laakiinse waa uu furmay waxayna moobilkii ku jeedisay wajigiisa waana uu furmay waxaana aragtay in tirada abku ay gaadhay 0 Queen aad ayay u argagaxday waxayna moobilkii ku tuurtay dhulka markii ay moobilkii dhulka ka soo qaadayna waxay aragtay Evan oo iyada soo eegaya aad ayayna u argagaxday waxayna meedkiisa ku celisay talaagada isla markiibana Queen waxay soo qaaday taleefankeeda si ay u eegto application-kii waxayna aragtay in nolosheeda ay ka dhiman tahay wax ka yar 2 maalmood waxayna ogaantay in maalinta dhimashadeedu ay ku beegan tahay waqtigii ay aabaheed kula balantay inay soo booqan doonaan qabriga hooyadeed isla markiibana waxay wacday aabaheed waxayna u sheegtay inay kansashay ballantii ahayd inay soo booqdaan qabriga hooyadeed isla daqiiqadaasna waxa uu soo dhacay notification uga yimid dhinaca abka waxa uu u sheegay inay jabisay ballanta inta kadib Queen iyadoo ag marasa mid kamid ah qolalka isbitaalka ayaa waxay dareentay humaag madow oo ka muuqda qolka dib ayayna u soo noqotay si ay u hubiso in meesha wax joogaan laakiin waxay ogaatay inaanay cidna joogin meesha si lama filaana waxa uga nixiyay Dr. Sullivan waxa uu ka codsaday inay caawiso maadaama bukaanu jooga isaga haddaba iyadoo shaqadii ku guda jirta ayaa waxa xumaaday mashiinkii dadka baadhayay waxayna damacday inay dibadda uga baxdo qolka laakiin waxa joojiyay Dr. Sullivan isagoo damcay inuu ku xadgudbo laakiin waa ay la dagaashay waxayna ka soo baxday qolka waxayna soo aaday dhinaca Amy si ay ugu sheegto waxa ku dhacay laakiin intiisa la hadlinba waxa Amy u yeedhay doctorka isla markiibana waxa uu soo dhacay notification kale habeenkaas Queen waxay isku dayday inay dilad gareyso abka laakiinse way awoodi weyday waxayna bilowday inay internetka ka raadiso information ku saabsan abka waxayna aragtay gabadh ka sheekeynaysa waxa ku saabsan application-ka waxaana ay gabadhan u sheegaysay in waqtiga dhimashadeedu ka dhiman yahay wax yar mar dhowna ay dhiman doonto isla markiiba taleefanka ayaa ka dhacay iyadoo ku qaylinaysa waqtigeygu uu dhacay dhammaan dadkii commentiyada u soo qorayay waxay lahaayeen been ayaad sheegaysaa sida awgeedna Queen waxay yara dareentay nafis waxaana isku laabtay laptopkeeda isla markiibana waxa si lama filaan ugu sawirmay wajiga Evan-kii dhintay aad ayayna u argagaxday waxaana u soo dhacay ogeysiis kale laakiin moobilkeedii waxay ku dhufatay dhulka oo waa ajibisay laakiin iyadoo moobilka shaashadiisu madoobaatay ayaa haddana waxa muuqday abkii Queen waxay ka soo baxday guriga waxaanay gudaha u gashay gaadhigeeda halka ayayna habeenkii seexatay subaxnimadii waxa hurdada ka kicisay walaashii Jordan labadoodiibana waxay galeen guriga waxaanay walaashad qolka ka heshay moobilkii Queen oo jaban Queen waxay walaashad u sheegtay inay hal maalin uga harsan tahay nolosheeda balse walaashad maanay rumaysan hadalkeeda waxaanay u qaadatay kaftan waxaanay u sheegtay in aabahood uu aaday safar shaqo ayna la joogto guriga laakiin Queen waa ay diiday isla markiibana walaashad waa ay ka tagtay iyadoo xanaaqsan isla xilligaasna Queen waxa uu soo dhacay notification kale waxaana isku dayday inay furto moobilka laakiin suulka ay ku furi lahayd waxa uu ahaa dhaawac inta kadib Queen waxay soo aaday dukaan si ay u iibsato moobil cusub waxaanay soo iibsatay moobil cusub iyo sim card cusub
haddaba iyadoo tijaabinaysa aabiska moobilkeeda cusub ayaa waxa u soo dhacay notification uga yimi abkii aad ayayna ula yaabtay sida uu applicationku u soo galay moobilkeedan cusub waxaanay ninkii dukaanla ahaa weydiisay sababta uu applicationku u soo galay taleefankeeda waxaana uu isku dayay inuu dhilido laakiin waa uu awoodi waayay inuu dhilido Queen waa iskaga baxday dukaanka waxaana dukaanka soo galay customer kale oo ka cabanaya abka Queen waxay gashay gaarigeeda waxaanay eegtay abka waxayna si lama filaana kaamarada dambe ee baabuurka uga aragtay humaag qof soo socda markii ay isku dayday inay dib u eegtana waxba iyadii oo dhan dusha ka qabsaday waxayna dib ugu baxday gaari kale waxayna ku dhacday dhulka ninkii gaariga ay ku dhacday lahaa ayaa aad ugu qayliyay iyada laakiin customer ka soo baxay dukaanka ayaa ka celiyay ninkiina waa uu iskaga tagay goobta inta kadib customerkii ayaa Queen tusay abka labadoodiibana waxay soo aadeen meel baar ah waxayna ka sheekaysanayeen arrimo ku saabsan abka isla xilligaasna waxaa baarka ku sugnaa nin waalan kaasoo maqlayay dhammaan hadaladooda waxaana uu soo dejistay abka waxaanay aadeen dhinaciisa waxaana uu sheegay in cimrigiisa uu ka dhiman yahay 39 sano Queen iyo Matt waxay soo aadeen isbitaalka waxaanay u tageen nin wadaad ah waxaanay weydiiyeen waxyaabo ku saabsan arrimaha jinka laakiinse wadaadkii waxa uu sheegay inuusan aaminsanayn jimanka wayna ka tageen wadaadkii laakiinse intaysa bixin ka hor Amy ayaa waxa uu yeedhay Queen Mattna waxa uu aaday musqusha Matt waxa uu dareemay in albaabka musqusha wax soo gujinayaan waxaana uu muuqday in waxaas uu ahaa ilmo yar oo bilaa kaba mar labaad soo qacmaha meeranaya ayaa waxa uu maqlay qaylo waxaanu mar labaad arkay ilmo yar oo bilaa kaba oo ka gudbaya meesha waxaana isla markiiba tagay leedkii waxaana uu shitay moobilkiisa waxaana uu maqlay qof magaciisa ugu yeedhaya waxaana lagu soo qaaday weerar balse isagoo dagaalamaya ayaa waxa soo noqday leedkii waxa uu Matt arkay inaanay cidna joogin meesha dhinaca kale waxaynu aragnaa Queen oo la dooda soo koox kamid shaqaalaha isbitaalka waxaanay wada murmayeen Dr. Sullivan iyadoo ku eedeynaysa inuu yahay nin xun oo ablaha neersada ku xadgudba waxaanay u sheegtay inay iskaga tagayso shaqada waxaanay ka soo baxday qolkii shirka halka Matt uu ku sugayay dibadda ilaa inta ay ka soo baxaso waxaana Matt uu Queen u sheegay wixii ku dhacay intii uu musqusha ku jiray waxayna isla markaaba aadeen kaniisadda si ay ula kulmaan wadaad kale waxayna la kulmeen isagoo xafiiskiisa jooga waxayna isla markiiba wax ka weydiiyeen arrimaha jinka iyo waxay dadkii hore ka aaminsanaayeen waxa uu u soo kala bixiyay warqad kamid ah haraayadii dadkii hore waxa uu sheegay inuu jiri jiray nin amiir ah ninka amiirka ahina waxa uu aaday haweeney faalisa ah si uu ogaado goorta uu dhimanayo haweeneydiina waxa uu sheegtay goorta uu dhimanayo waxayna siisay buug iyadoo uu sheegtay inuusan macluumaadka u isticmaalin si uu u bedelo qadartiisa laakiin amiirkii waxa uu jabiyay ballantii islaantii faalalowada ahayd waxaana soo weeraray sheedaamo halkaas ayayna ku dileen waxaana uu wadaadkii u sheegay iyaga in dibka iyaga haysta uu yahay applicationkan uuna yahay naclad iyaga ku dhacday waxaana uu sheegay in haddii applicationka ka takhalusaan ay ka badbaadayaan nacladda jinkuna uu sidaa ku tagi doono waxaanay aadeen ninkii dukaanlaha ahaa oo lagu magacaabo Drake waxayna ka codsadeen inuu caawiyo oo hagareeyo abka waana uu ka ogolaaday codsigooda laakiin haddana waxa uu sheegay in koodhka abka uu yahay Laatiiniyaan waxaana isku dayeen inay raadiyaan dhammaan shakhsiyaadka isticmaalay abka waxaana ay ka dhaxeleen magaca Drake waxa uu helay koodhka saxda waxaanu awooday inuu hagareeyo abka waxaanu bedelay dhammaan macluumaadka ku saabsan abka waxaanu abka dhexdiisa ka helay magaca Queen walaasheed ee Jordan waxaanu Queen u sheegay inay walaasheed isku xilli dhiman doonaan laakiin hadan Drake waxa uu awooday inuu bedelo waqtiga cimrigooda oo uu gaarsiiyo ilaa 90 sano isla xilligaasna Jordan waxay eegtay moobilkeeda waxaanay aragtay in tirada abku isbedeshay dhanka kale Matt iyo Queen waxay u mahad celiyeen Drake maadaama uu noloshooda badbaadiyay inta kadib Queen ayaa Matt ka codsatay inuu caawiyada la joogo waxaanay Queen ay tagtay qolkeeda laakiin leerkiis kama aysan dimin maadaama ay wali cabsanayso inta kadib Matt waxa uu sheegay dhimashada walaalkii iyo qaabka uu u geeriyooday Queen sidoo kale waxa uga sheekaysay geerida hooyadeed inta kadib labadoodiiba waxay seexdeen iyagoo aad u murugaysan maadaama ay soo xasuusteen dadkoodii geeriyooday cabaar markii ay hurdeen Queen waxay maqashay sanqar xoogan waxaanay hurdada ka kicisay Matt laakiin shaydaankii ayaa soo weeraray iyada oo la dagaalamay waxaana u yimi Matt una sheegay in meesha aanu shaydaan joogin isagoo u sheegay inay qarwaso iyadu inta kadib Queen waxay shiday telkeeda waxa ayna aragtay in applicationkii uu sidiisii ku soo noqday aad ayayna u argagaxday Queen sidoo kale waxay xasuusatay in walaasay Jordan uu telka ugu jiro abku
dhinaca kale Jordan waxay maqashay talkeeda oo gariiraya waxaanay soo furtay abkii waxaanay aragtay in abku sidiisii ku soo noqday sidoo kale waxay aragtay wax madow oo taagan iridda qolkeeda Jordan waxay soo aaday dibadda waxaanay shiday leedhka waxayna ku soo noqotay qolkeeda waxaanay xidhay albaabka iyo dhammaan daaqadaha qolkeeda laakiin haddana waxay aragtay in albaabku uu isfuray aad ayayna u cabsatay waxaanay gashay sariirta hoosteeda waxayna maqashay hooyadeedii dhimatay oo u yeedhisa iyada waxna ka weydiinaysa arrimaha walaasheed Queen isla markiibana waxba sariirtii ka tuuray waxayna aragtay hooyadeedii dhimatay oo hortaagan Jordan waxa ku sii siyaaday cabsidii waxaanay u carartay dhinaca albaabka weyn waxaanay kula kulantay Queen iyo Matt oo iyada raadinaya inta kadib waxay u tageen wadaadkii waxaanay u sheegeen inay arkeen jinkii waxa uu wadaadku akhriyay koodhkii ku qornaa farta Laatiinka waxaana uu wadaadku iyaga u sheegay inay isdejiyaan isagoo u sheegay inay noolaan doonaan haddii ay ka takhalusaan jinka waxaana u sheegay wadada kaliya ay kaga badbaadi karaan taasoo ah inay sameeyaan goobo lagu wareejiyay cusbo ama milix Queen ayaa waxay bilowday inay isku qasto cusbo iyo rinji waxaanay sameysay goobo waxaanay ku dhex sawireen xidig lix geesood ah Matt waxa uu eegay saacadii abka waxa uu arkay inay u dhiman tahay 2 daqiiqo oo kaliya waxaana uu dhinaca kale uga talaabay calaamadii isagoo aad u nacsan Queen ayaa dhunkatay isaga inta kadib waxa tagay leedhkii waxaana yimi jinkii dhamaantoodna waxay gudaha u galeen calaamadii wadaadkiina waxa uu bilaabay inuu dacaysto shaydaankiina waxa uu mar kale kaga yimi xagga dambe laakiin waxa uu awoodi waayay inuu gudaha u soo galo calaamadda wadaadkiina waxa uu isku dayay inuu shaydaanka ku celiyo cadaabta inta kadib waxa calaamadii soo galay ruuxaanta wiilkii Matt ay walaalaha ahayeen ee dhintay isagoo ka codsanaya inuu badbaadiyo waxaana uu arrinkani ahaa dabin shaydaanku u dhigay isaga Matt waxa uu ka soo baxay calaamadda isagoo isku dayay inuu badbaadiyo walaalkii waxaana u yimid jinkii oo jiita isaga Queen ayaa ku soo orday dhinaciisa si ay u badbaadiso balse waxay aragtay isagoo gaadhi jiray halkaas ayuuna Matt ku nafbaxay inta kadib waxaynu aragnaa in abkii uu ku istaagay 0 Queen waxay aragtay walaasheed oo dhaawacyo ku yaalaan waxaanay u soo kaxaysay isbitaalka si looga daaweeyo dhaawac ka soo gaadhay caloosha Queen intay joogtay isbitaalka waxay la kulantay mid ka mid ah asxaabteedii hore oo kalkaalisa waxaanay u sheegtay in Dr. Sullivan uu iyadana kula kacay ficilo xunxun aad ayayna Queen uga xumaatay dhibka saaxiibadeed soo gaadhay waxaanay gelisay laabta isla markiibana Queen waxay aragtay Dr. Sullivan oo walaasheed la hadlaya waxaanay soo aaday dhinaciisa waxaanay u sheegtay inuu ka fogaado walaasheed inta kadib Jordan waxay Queen u sheegtay inay aad u cabsanayso maadaama ay aragtay ruuxaanta hooyadeed laakiin Queen waxay u sheegtay inaysan warwarin Jordan oo aad u murugaysan ayaa waxay Queen u sheegtay inay tahay daqiiqadii ugu dambeysay ee dunida sii joogi doonaan laakiin Queen waxay u sheegtay inaysan aaminin marnaba arrinka ayna la dagaalami doonto jinka inta kadib Queen waxay soo aaday xafiiskii Dr. Sullivan waxaanay u sheegtay inay ugu timeenay raali gelisay isaga maadaama ay ku qaylisay maalintii shirka Dr. Sullivan waxa uu weydiiyay waxa ay uga baahan tahay isaga waxayna ka codsatay inuu shaqada ku soo celiyo waxaanay u sheegtay inuu iyada ugu yimaado qololka dambe ee isbitaalka inta kadib doctorkii waxa uu soo aaday meesha ay Queen kula balantay waxaanu arkay dharkeedii oo meel yaala waana uu soo qaatay si kadisa isagoo meesha taagan Queen ayaa bir madaxa kaga dhufatay Queen waxay aaminsanayd in haddii ay doctorka disho ay ka badbaadiso shayaadiinta isla markiibana waxa goobta soo gashay walaashii Jordan waxaanay Jordan eegtay waqtiga u hadhay waxaanay ogaatay in nolosheeda ay ka arsan tahay wax ka yar 2 daqiiqo si kadisa waxay u aragtay shaydaankii oo gadaasheeda soo socda halka Queen ay eegayso doctorkii oo shaydaan sii jiidanayo balse haddana waxay ogaatay in jinku uu sandilayn doctorka ee uu badbaadinayo waxaanay isku dayday inay disho laakiin waxa ka badbaadiyay jinkii dhanka kale waxaynu aragnaa Jordan oo shaydaanku raadinayo Jordanna waxay isku dayaysaa inay ka dhuumato waxaana isku dayday inay iska fogeyso telka oo ay ku rido talaagad meesha taalay laakiin waxa arkay jinkii waxaanu Jordan ka tuuray daaqada haddaba waqtigu waa uu sii dhamaan rabaa jinkuna waxa isku dayayaa inuu dilo Jordan si lama filaana waxa uu jinku arkay Queen oo irbad sunna isku duraysa Jordanna waxay ku qaylinaysaa walaasheed iyadoo ku qancinaysa inaanay nafteeda dilin laakiin shaydaankii waxa uu isku bedelay ruuxaanta hooyadeed aad ayayna u faraxday Queen balse haddana Queen waxay u aragtay in waxaanu yahay dabin loo dhigayo si aanay isu dilin waxaana isku durtay irbadii sunta ahayd sidaas ayayna ku dhimatay ka hor inta uusan jinku dilin sidaas ayayna Queen ku awooday inay jabiso sixirkii jinka jinkiina sidaas ayuu ku baaba'ay
haddaba Jordan ayaa soo aaday dhinaca walaasheed Queen waxaanay aragtay inaysan dhiman walaasheed oo ay weli nafi ku jirto waxaanay ku mudday irbad kale oo daawo ah sidaas ayayna ku badbaaday Queen halkaas ayay shaydaamadii iyo ruuxaamihiina ku baaba'een filimku waxa uu dhamaanayaa Queen iyo walaasheed Jordan iyo aabahood oo jooga qabriga hooyadoodna u ducaynayaan